السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكم سلام داودة كسر دوا برنامج كنا كيش يكين جني تديوغا سو إسلامي أنت واحد سوق قادم دونا فيديوهن كوينا عنكها مايكل غريغ تايسون wuxuu ku dhashay magaalada New York 1966 bishii June 30keegii Tyson waxa uu ku guuleystay 19 dagaal ee ugu horeeyay uu galo feerka 12 kamid waxay ahaayeen wareegga koowaad 4 bilood iyo 22 cisho ayuu Tyson haystay rikoorka ah feeryahanka ugu da'da yar ee miisaanka culus Tyson waxa loo arkaa inuu yahay mid kamid ah feeryahanada ugu cabsigelinta badan feerka culus sidoo kale waxa lagu magacaabay Iron Mac Tyson ayaa sanadkii 1992 lagu helay fal kufsi ah feeryahankii haysta feerka adduunka ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana uu halkaa ku soo qaatay 3 sano oo kaamil ah Tyson waxa uu xabsiga ka helay fursadii ugu fiicneed ee uu noloshiisa ku bedelay Mac Tyson oo weligiis lagu yaqaanay dabeecad qalafsan iyo in uu badan xagga xumaanta ayaa markii uu ka soo baxay xabsiga soo bandhigay ficiliye habdhaqano ka duwan kuwii hore kadib markii uu aqbalay ama uu qaatay diinta islaamka Muhammad blessings and peace be upon him as his prophet xilligii uu ku goday jiray 3 sano ee uu jeelka ku jiray Tyson waxa uu magaciisa ku bedelay Malik Abdulaziz waxa uu tagay xajka dhowr jeer Tyson waxa uu leeyahay taariikh ku weyn qaybta feerka adduunka taawada barnaamijkeeni maanta halkaas ayaa uu ku joogayaa waxaana maalmaha soo socda ku soo qaadan doonaa shakhsiyaad kale oo caan ah